waxaan isleenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wada tashi laga sameeyo talooyin afkaar la isugu weydaarsado talooyin dhaxalgalan meesha laga sheego marka runtii waxaan isleeyahay axsaabta siyaasiyiinta waxgaradka maanta isugu yimid kulligood waxay qabeen dareen ah in dalka la badbaadiyo xukuumadda talooyin la siiyo ummadda Soomaaliyeed la wacyigeliyo oo loo muujiyo wada hadalka iyo wada tashiga iyo afkaarta kala duwan inay muhiim u tahay geedi socodka ummadda Soomaaliyeed runtii waa nasiib daro in lagu kulmi waayo magaalada Muqdisho ama ay culays oo ka yimid siyaasadeed in kulamo noocan oo kale lagu qabto dalka gudihiisa hase ahaatee haddii xitaa lagu qabtay dalka dibaddiisa ceeb ma laha oo dawladda shisheeye iyo ajaanib iyo cid kale arrinta shaqo ku leh ma laha Professor Gandhi oo dhinacayga fadhiya iyo aqoon-yahano kale oo iyo xildhibaano kale oo Soomaaliyeed ayaa arrimahan ka soo shaqeeyay ujeedadan wax kale ma ahayn in talooyin iyo afkaar iyo wada hadal arrinta laga sameeyo marka insha Allah waxaan rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u arkaan wanaag iyo dad u soo istaagay u qiirooday xaaladooda guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaan magaalada Muqdisho in maaragtay talo iyo afkaar laga dhiibto axsaabta ka soo qayb galay kulanka maanta waxaa ka mid ah xisbiga daldhis xisbiga wadajir xisbiga nabadda xisbiga elays xisbiga mid qaran xisbiga isbahaysiga iyo siyaasiyiin waxgarad oo iyagana ka mid ah axsaabtaas qaar la mid ah bayaanku wuxuu ka bilaabanayaa sidatan maanta oo ay taariikhdu tahay 22 Abriil 2019 waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed xildhibaano siyaasiyiin kale waxgarad aqoon-yahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culays saartay in kulamo noocan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo dhibsatay cadaaweysatay in xogaga siyaasadeed ama siyaasiyiinta talooyinka dalka ka wada ama axsaabta rasmiga ah jira inay isu yimaadaan dalka ay arrimaha Soomaalida ay ka wada hadlaan culayskaas ayaa keenay in dadka qaarkii markay halkan isku arkeen ay yiraahdeen aan ka faa'iideysano fursadan maanta aan isu helnay inaan shirkan qabanno sababta ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahayd walaac laga qabo halista soo food saartay geedi socodka dhismaha dawladnimada iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilaabmay magaalada Carta ee dalka Djibouti sanadkii 2000 ka soo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha ka sii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda